السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي ولا لا يقالي ملك استعدون كتشوكتين وأنا جو أسجل يوتيوب channel كأنا قد ونسين وأسجل عبد السود وأصحابته channel سبسكرايب صار دي أكو عصبتها دي أمر كتشوكتين لايك شير كومنتي وعاوي وما سنتهين أمانتي ملك استعدون كتشوكتين إلهي يعني قلنا بديالو أصحابتي إذا قالي ما أنت وحينيها يا شيكو دي أو أهيد sheekadu waxay tahay aadan sadana ma xajiyo ama se bini aadan sadana ma xajiyo sheekadu waxay ku saabsan tahay nin iyo gabadhiisa iyo nin kaleeto laba nin iyo gabar bay ku saabsan tahay marka ninku wuxuu ahaa nin suldaan ah ninka suldaannimadiisa waxaa lagu doortay wuxuu ahaa nin xoog leh oo hanti leh oo qurux leh oo geesi ah buu ahaa suldaannimo loo doortay dadka xaafadda iyo aagii meelahaas deegaanka deganaaba waxay u doorteen suldaanadii markii loo doortay naagna waa loo guuriyey suldaannimadii baa loo ugu caana shubay loo cimaamad saaray markii loogu cimaamad saaray suldaannimadii naagtiisa isku guursaday laba ilmood bay u dhashay wiil iyo gabar bay u dhashay wiilkii gabadhii markii u dhashay gabadh way dhimatay way xijaabtay markaas gabadhii iyo wiilkii uu iska korsado ninkii gabadhii wiilku iska korsaday gabadhi marka 15 gaartay bay waxay noqotay brailis ayadii dhanba ma shaqaynayso markaas gabadhii markay brailis noqotay uu dadka deegaanka wuxuu isugu yeeray wuxuu dhahay gabadheeda ninkii daawo u keeno saldanadana waa siinayaa oo suldaannimadan ku wareejinayaa hantideedana waa ku wareejinayaa wax kastoo aan aniga haysto marka dadkii oo dhan way ku wada farxeen waxay raadiyeen waxyaabo ay ku daaweeyaan daawadiisay u raadinayeen qof kasto mid kastoo lacag leh midaan lacag lahayn mid kasto wuxuu raadiyay daawo uu ku daaweeyay gabadhaas way soo waayeen markii ka samreen baa maalinka dambeeto nin iska qoryo gurto isagoo qoryo guranayo geed hoos fadhiyo oo qoryo ka gurguranayo baa waxaa simbir ah soo dulfuushay geedkii se waxay dhahday aadana sadana ma xajiyo markaasuu yiri naa sadana waa xajinaaye sadanada xagee taashaa markaasuu maalinka dambeeto haddana bay sidoo kale ku dhahday markaasi haddana sidoo kale yiri aawa igeebiyo meesha sadanadu taasho say waxay dhahday baaba la ogaan bay tiri haddii aad sadana xajinaysid markaasi waxay tiri miyaadan ogeyn gabadha boqorka inay u baahan tahay daawo oo qofkii uu daaweeyana sadanadan lagu wareejinayo gabadhana lagu guurinayo markaasuu yiri saa marka ma daawaan u hayaa buu yiri say tiri geedkan inta qaadid gabadha ugu qubee ugu huuri inta karisid geedkaas cabsiina uu soo qaaday geedku soo qaaday waxa uu imaaday nimanka waardiyaasha ah markaas oo meesha jooga markaasi wuxuu dhahay aniga haayo daawada gabadha ee hala ii geeyo boqorka suldaanka markaas bay waxay dhaheen adigaan miskiinka maxaad haysaa war naga tag baan ku yiri bay ku dhaheen waxba ma hayside markaas waxay yiri war markayga hala ii tijaabiyo nimanka dhan dadka dhan waa la tijaabinaye anigana hala ii tijaabiyo markayga waxaa loo gudbiyey suldaankii markii loo gudbiyey uu aqbalay wuxuu dhahay soo daayay oo wuxuu haya bal aragne ninkii gabadhii buu u qubeeyey يعني بيه وقبيي وكهوريي وعبسيي markii waxaas dhan uu sameeyay bay gabadhii indhaha dhaqaajisay awal indhaha ma dhaqaajin hal meel bas iska fiirnaysay way dhaqaajisay indhaha dhaqaajis markii la arkay boqorka waa waxoogaa wuu ku farxayba hadana maalinka dambe tuu sidoo kale uu huriyo uu sameeyay waxoogaa inay dhaqaaqdeeba keentay oo xarakaad ay sameyso haddana maalinkii saddexaad buu sidoo kale ku sameeyay gabadhii waxaa la arkay fariisanayso
maalin afraadkii haddana waxaa la arkay gabadhiyo si fiican u dhaqaaqayso. maalin shanaadkii haddana waxaa la arkay gabadhiyo oo yacni jirkeeda inay dhaqdhaqdo la dhaqdhaqdo markii uu ninka biyaha ugu qubeynayo baa la arkay. boqorkiyaa loosoo sheegay, warkaas uu ku farxayo, ninkaan nuuna adag weeye. qol baa la dejiyey ninkii. markii qolkii la dejiyey ninkii buu haddana maalin xaadka sidoo kale sameeyey. maalin xaadka markuu sidii sameeyey bay gabadhi waaba si fiicnaatayba, waxay ugu tagtay aabaheeda lugaheeda ugu tagtay, way la soo sheekaysatay, way soo laabatay, iyadoo fariisanaysa istaagaysa, wax kastay sameynaysaa. way imaatay maalin toddobaadkii haddana caadi u socotayba, socod si fiican oo dhamaystiranay ku socotay. way tagtay meesha suldaanka aagiisi yacni gurigiisi kusoo wareegtay, si fiicana u socotay, caadi noqotay. aabaheeda u imaaday. aabe waxay tiri waa maxaa jiro, sidee taaq sidaan ku saabsan tahay, oo aniga maxaan ahay, hadda leen soo baraarugee maxay taha. markaas wuxuu dhaha aabe waa xanuunsanayd, meel kasta baraalisa ka noqotay, marka sidaas ba adiga inaa aabaha tahay keliya, inaa adiga aabahay tahay keliya xasuustaaye wax kale ma xasuustiye, iga waranay dhahday. wuu uga waramay wax kasta, wuu u sheegay inuu ninkan daaweeyey. ninka i daaweeyey dhahda aabe ii guuri. wuu u guuriyey ninkii markuu u guuriyey saldanadiisi inuu ku wareejiyey. saldanadii markuu ku wareejiyey buu ninkii ayaa saldanadii iyo naagtii iyo wax kastoo isku qaatay. markaas bo odaygiina wuxuu sameeyey, wuxuu degay qol yaroo iska caadi ah. qolkii markuu degay buu ninkaan iyo naagtii waa hawshii kala wado, ayagana boqortooyadii kala wado. maalinkii dambeeto buu naagta u yeeray, soo wuxuu ku yidhi gabareey, aabaha ima jeclo, aabaha hadduu i jecel yahay qolkaas ha ii furo. se waxay tiri aabahay wuxuu lahaayoo dhan adiguu ku siiyey, gabadhiisii wuu ku siiyey, suldaannimadiisii wuu ku siiyey, hantidiisiina wuu ku siiyey, maxaad kaloo rabtaa. markaasay tiri suu yiri maya dahabkii iyo dinaarkii iyo wax kastaba, iyo kursigii dahabka ahaayoo uu ku fadhiyeyba, wax kastaba halkaas qolkaasay ku jiraane, aabaha qolkaas ha ii furo. markaasay tiri war ma aqaan meeshaad u orday sida istaji. markaasuu yiri maya. maalinka dambeetu wuxuu u tegay odaygi markuu u tegay buu wuxuu ku yidhi adeerow may maqlaysaa, haddii aad daacadnimo ay kaa tahay oo aad i jeceshahay, oo aan gabadhaadi anaan kuu daaweeyey, adna aad iigu wareejisay waxyaabahaasoo dhan, oo aad run sheegaysid, qolkaas ii fur. su wuxuu yidhi oo qolkan kuu furi maaye orodoo waxa aan ku siiyo ha kugu filnaadeene, maaqaan meeshaad u orday sida harso. markaasuu yidhi maya waxaas iladaa lagu dhahaa, haddaad run sheegaysid ii fur qolkaas, aan hantida ku jirtay waxaba isku darsadeen. ninku wuu arkay inuu yahay mid iimaanku ka kacsan yahay, wuu yaabay, wuu tegay, wuxuu yidhi sidaa sahalkaa kugu furi maayo qolkee, bal orodoo dadka isugu yeer. dadkii baa la isugu yeeray. dadki markii isugu yeeray buu yidhi dadow i dhegeysta, ninkan waa ogeydeen siduu kusoo galay reerka, oo uu suldaannimada loogu dhiibay, gabadh loogu guurshay, hantidana ugu wareegshay. maanta waxa uu ii saxiixayaa qolka inuu aan u furo, asna markuu qolka waxa ku jira uu la baxo, uu rabo markuu la baxo, anna inuu ii saxiixayo gabadhayda inuu furayo, hantidayda igu wareejinayo, saldanadeedana igu wareejinayo. markaasna isagoo wuxuu qolkaas ku jira wata uu iga tagayo, uu ka saxiixay, waa laga saxiixay. markaasaa yiri qolkii baa loo furay. qolkii markii la furay waxaaba ku jiraba labadii calal oo markii uu imaanayay uu watay. labadii calal qolka intuusa gelin wuxuu yidhi ka joog, waa loo furo qolkii, waa la balaqay, albaabadii o dhan la furay. mase waxaaba dhex yaalaba labadii surwaalkii iyo fanaanadii, yacni labadiisa shay baa dhex taasho. markaas waa loo soo baxshay, wuxuu yidhi qolkayga inaad gashay ma rabe, ka joog. qolkii loo soo waxaa looga soo baxshay dharkii, ma istaahashid inuu yidhi qolkayga aad gashid.
wuu usoo baxshay labadiisa calal gabadhii furay wixii o dhan ba iyo hooga ku dhacay ninkii markaas wuu tegay meeshiisiibuu ku laabtay qori gurowgiisi isaga weliba awba xoogaa sharaf uu lahaa sharaftiri ka dhacday markaas shimbirtii soo korfoostay saytee aadana sadana ma xajiyo bini aadan sadana ma xajiyo markaas waa ka yaabay wuxuu yidhi waa runtaa buu yidhi bini aadan sadana ma xajiyo marka walaalahayga qaaliga intaas igu soo koobay sheekada waxaan ka rajeynaya inaad ka heshaan marka channelka subscribe saara like comment intaas nagu caawiyo waa mahadsantihiin khayr baa in rajeynaya is arag dambe